Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qaybta shanaad ee taxanaha Falastiin. Waxaana halkiisii ka sii ambaqaadi doonaa xalqaddii tan ka horreysay marka lixaad laga soo bilaabo 135 miilaadiga ilaa bilowga qarnigii 20aad. Yuhuuddu lama aysan lahayn xiriir toos ah Falastiin iyo Qudus toona. Si kastaba ha noqotee, Yuhuuddu waxay ku andacoodaan in xiriirkooda ruuxiga ah ee ay la leeyihiin Qudus uu weligii jiray oo ay aadi lahaayeen dhulka Falastiin haddii xaaladihii siyaasadeed ee waaga ay u ogolaan lahaayeen. Hase yeeshee, sheegashadani waxay u muuqataa mid aan run ahayn oo la bunbuuniyey, gaar ahaan markaan aragno xaqiiqooyinka soo socda. Markii Imbaradorkii Bershiya ee la odhan jiray Qubriskii labaad uu u ogolaaday Yuhuudda inay ka tagaan dhulkii Baabil oo ay ku noqdaan Falastiin, in yar oo ka mid ah ayaa ku noqotay Falastiin, halka Yuhuuddii kale ay ku sii nagaadeen dhulalkii ka baxsanaa Falastiin ee loo musaafuriyey. Taariikhyahanadu waxay sidoo kale xuseen in tirada Yuhuudda ee ku hadhay magaalada Qudus ka hor burburkeedii qarnigii koowaad ay ka yareed 3 meelood meel tirada guud ee dadkii Yuhuudda ee wakhtigaas noolaa. Inkasta oo maamulkii Yuhuuddu gaadhay boqortooyo yar oo madax bannaan intii u dhaxaysay sannadadii 141 ilaa 27 Nebi Ciise hortii, xitaa maanta 60% Yuhuudda adduunka joogta waxay ku nool yihiin meel ka baxsan dowladda Sahyuuniyadda, waxayna diidan yihiin inay u haajiraan dhulkii hooyo, gaar ahaan kuwa ku nool waddamada dhaqaalaha barwaaqada ah leh sida Maraykanka iyo Yurubta Galbeed. Marka tobnaad, runtii dib ugu noqoshada Falastiin. Yuhuudda diin ahaan waxay aaminsanaayeen in laga mamnuucay dhulkaas, laakiin waxay aragtidaasi isbeddeshay bilowgii qarnigii 20aad iyo soo bixitaankii Sahyuuniyadda. Wixii waaga ka horreeyay, Yuhuuddu waxay rumaysnaayeen in Eebbe u diiday inay ku noolaadaan Falastiin falalkooda xunxun awgood, oo ay dib ugu laaban karaan oo keliya marka Masiixa Badbaadiyuhu yimaado oo uu wanaag ku hoggaamiyo mar kale. Wakhtigaa, sida Yuhuuddu rumaysnaayeen, Yuhuudi kasta oo ku baaqa inuu ku laabto Falastiin si uu halkaa uga dhiso beel Yuhuud ah waxaa loo tixgelin jiray inuu yahay heterodox. Marka sideedaad, sannadkii 395 taariikhda miilaadiga, boqortooyadii Roomaanku waxay u qaybsanayd 2 qaybood, kuwaas oo kala ahaa bariga Byzantine oo ay caasimad u ahayd Constantinople, iyo galbeedka Rome oo ay caasimad u ahayd magaalada Roma. Falastiin waxay ku hoos jirtay xukunkii Byzantine marka laga reebo dhowr sano oo ay Bershiya qabsatay aaggan. Intii u dhaxaysay 610 ilaa 624 taariikhda miilaadiga, Byzantiniyiintu waxay si dadban u xukumayeen Falastiin, iyagoo awaamiirtooda u gudbin jiray wakiiladoodii aaggan oo ahaa qabiilooyinkii Carabta ee reer Khazani, kuwaas oo ka soo haajiray Yaman oo qaatay diinta Kiristaanka qarnigii 4aad. Xilligaa ma jirin guuritaan aad u ballaadhan oo ka yimid Yurub, maadaama Roomaaniyiintu ay doonayeen in aaggan uu noqdo safka hore ee ay ka dagaalgeli doonaan xilliyada dagaalada, iyo in uu noqdo il dhaqaale oo Roomaaniyiinta faa'iido u leh. Sidaa awgeed, tirada dadka deegaanka wax weyn iskama beddelin. Marka sagaalaad, Muslimiintu xilligii Khaliif Cumar radiyallahu canhu waxay furteen dhulkan sannadkii 636 taariikhda miilaadiga, kuna beegan sannadkii 15aad ee Hijriyada. Khaliif Cumar wuxuu shakhsiyan kala wareegay furayaashii Qudus ninkii ugu sarreeyay Masiixiyiintii Qudus maamulaysay, wuxuuna u damaanad qaaday inuu dadka Qudus ku nool siin doono xorriyad diimeed iyo xaqa ay u leeyihiin inay ilaashadaan kaniisadahooda ku yaalla magaalada Qudus. Waxaa heshiiskan loo yaqaanaa Cahdigii Cumar. Wakhtigaa, magaalada Qudus waxay makhraati ka noqotay in aanu dhiig ku daadan, oo Cahdigii Khaliif Cumarna siduu ahaa loo hirgeliyey. Tan iyo waagaa, badiba Falastiiniyiinta, kuwaasoo ahaa farcankii reer Kancaan iyo reer Falastiin, waxay qaateen diinta Islaamka. Intii lagu guda jiray khilaafadii Umayyadeed, qudbiga dhagaxa The Dome of Rock oo ka mid ah dhismayaasha sida qotada dheer loogu farayaraystay ayaa laga dul dhisay dhagixii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee uu ka bilaabay safarkiisii samada Micraaj. Dadweynihii maxalliga ahaa ee dhulka Falastiinna
waxay la midoobeen soo galootigii ka yimid jasiiradlamooda Carabta, waxayna qaateen afkoodii Carabiga. Marka tobnaad, xukunka joogtada ah ee Muslimiinta waxaa hakad geliyey dagaaladii lala galay Saliibiyiinta. Saliibiyiintu waxay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada Qudus sanadkii 1099 taariikhda miilaadiga, waxayna Saliibiyiintu magaalada Qudus ka sameeyeen dhiigdaadintii ugu xumayd ee abid soo marta. Saliibiyiintu waxay yagleeleen boqortooyadoodii Laatiin ee Qudus, taas oo xukunkeedu socday 88 sano ilaa ay ku burburtay seefta Salaaxuddiin al-Ayuubi. Wixii ka dambeeyey dagaalkii Hitin ee dhacay Julaay 1087 taariikhda miilaadiga, Salaaxuddiin wuxuu ciidamadiisii u dhaqaajiyey magaalada Qudus, wuxuuna gacanta Muslimiinta ku soo celiyey 2 Oktoobar 1087 taariikhda miilaadiga. Ilaa 1200 oo sano, Falastiin waxaa deganaa oo maamulayay Muslimiin, xitaa laga soo bilaabo waqtiyadii hore ee dhulka Falastiin ay ku noolaayeen reer Kancaan. Waxaa dhulkan deganaa oo maamulayay dad isku mid ah. Taariikhda Muslimiinta ee Falastiin waa midda ugu qotada dheer. Taariikhda dhigan ee laga hayo Falastiin iyo dadkeeda waxaa keliya oo arqaladeeyay dagaaladii Saliibiyiinta. Ilaa sanadkii 1918 dadkii aaminsanaa saddexda caqiido ee Islaamka, Masiixiyadda iyo Yuhuuddu waxay dhulka Falastiin ku wada haysteen nabad iyo wada noolaansho dhab ah, taas oo ay ugu wacnayd xukunkii Muslimiinta ee ka jiray dhulka Falastiin. Marka 11aad, xitaa haddii aan u qaadano in Falastiin ay ka tirsan tahay Yuhuudda jinsi ahaan, ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in Yuhuudda maanta jirta ay yihiin farcanka tooska ah ee Yuhuuddii hore. Taa beddelkeeda, caddaymaha taariikhiga ah waxay sheegayaan inaysan ahayn Yuhuuddii asalka ahayd. Inta badan Yuhuudda ku nool adduunka maanta waa farcankii reer Yuhuud Khasar, oo ahaa qabiil Tataar Turki ah oo ku noolaa Caucasus agagaarka badda Caspian-ka. Boqorkoodii oo lagu magacaabi jiray Bulan ayaa la sheegaa inuu ujeedooyin istiraatiijiyadeed dartood u qaatay diinta Yuhuudda sanadkii 740 taariikhda miilaadiga. Sidii waqtiyada caanka ahayd, qabiilkoo dhanna waxay qaateen diinta Yuhuudda. Markii dambe, boqortooyadoodii waxaa burburiyey isbahaysigii Ruushyaanka iyo Baysantaaniyiinta. Yuhuuddii Khasarna waxay ku kala firdheen Ruushka iyo Bariga Yurub. 90% Yuhuudda maanta jirta ee loo yaqaan reer Ashkenazim waxay asal ahaan ka yimaadeen dadkaas aan kor ku soo xusnay. Sidaa daraaddeed, haddii Yuhuudda maanta nooli ay ina weydiiyaan inay ku noolaadaan dhulkii awoowayaashood, waa koonfurta Ruushka, halka ay xaq u leeyihiin inay aadaan oo ay ka soo farcameen, ee maahan dhulka Falastiin. Marka 12aad, xukunka casriga ah ee Sahyuuniyadda ayaa ku dhisan rabshado iyo gacanka hadal. Waxay barakiciyeen oo ay ka qaadeen xuquuqdoodii aasaasiga ahayd dadkii aan Yuhuudda ahayn. Xitaa haddii dhulkaas taariikh ahaan ay leeyihiin Yuhuuddu, macnaheeda ma aha in la aqbali karo inay dadka kale oo dhan ka xayuubiyaan xuquuqdooda, gaar ahaan maadaama dadkaas aysan mas'uul ka ahayn xaaladihii adkaa ee ay Yuhuuddu wajahday. Gunaanad, haddaan soo koobno 12kaas qodob ee aanu kor ku soo xusnay, taariikhdii dheerayd hodankana ahayd ee Falastiin haddaan barbar dhigno dhammaan sheegashooyinka Yuhuudda, taariikhda Yuhuuddu waxay noqon saacad ka mid ah 7. Ujeeddada qabaa'ilada Yuhuuddu waxay ahayd oo keliya inay ku soo duulaan xukunkoodana ka dhistaan qaran hodan ka ah dhinacyada maadiga iyo dhaqanka. Waa dhulka Falastiine. Yuhuuddu waxay aakhirkii burburiyeen dhulkan, waxayna sheeganayaan asalkiisa inay iyagu leeyihiin. Isagoo ka faaloonaya taariikhda Yuhuudda ee dhulka Falastiin kadib burburkii labadoodii boqortooyo, taariikhyahankii caanka ahaa ee G.H. Wells wuxuu diiwaanka taariikhdiisa ku soo koobay sidan: nolosha Cibraaniyadda ee Falastiin waxay la mid ahayd nolosha nin ku adkaysanaya inuu ku noolaado bartamaha waddo mashquul badan. Sidaa daraaddeed, mar kasta waxaa ku dhacaya gawaadhida reer Kancaan iyo Falastiiniyiinta oo qaatay diinta Kiristaanka xilligii Byzantine oo kadibna qaatay diinta Islaamka. Waa isla dadkii ku noolaa aaggan ilaa sanadkii 1948 iyo 4500 ee sano ee lasoo dhaafay. Sidaa daraaddeed, iyagu waa dadka keliya ee lahaanshiyaha sharci ee dhulkan aan lagala gorgortami karin. Qabsasho kasta
oo xoog ku ah dhulkooda iyo diidmada xuquuqdooda dadkan waa mid aan lagu sharciyeyn karin shuruuc meelo kale laga soo waldaamiyey. Maxaa yeelay waa xuquuqda aas-aasiga ah ee ummad ay ku go'aamiso aayaheeda. Ficilada argagixisada Sahyuuniyadda awgood, ilaa sanadkii 2002 waxaa jiray 4.8 milyan oo Falastiiniyiin ah oo qaxooti ahaan ugu noolaa dunida dacaladeeda, iyo 1.6 milyan oo ku jiray xeryaha qaxootiga ee Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza, kuwaas oo badiba ahaa farcankii tooska ahaa ee reer Kancaan iyo Falastiin, oo ahaa dadkii u soo hooyay dhulkan sharaftii uu caanka ku noqday ee loogu yeedhi jiray dhulkii caanaha iyo malabka. Xalqadana maanta halkaa haynoo joogto. Haddii aadan daawan xalqadii tan ka horreysayna, waxaad ka daawan kartaa linkiga hoose. Waxaana xalqadda xigta aanu ku soo qaadan doonaa sida dhulka Falastiin uu ugu gacan galay Sahyuuniyadda. Ugu dambeyntii, ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto, commentigana noogu reebto wixii talo ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.